waxaa maanta aniga iyo siihayaha ra'iisul wasaare iyo civil aviationka airport managementiga iyo dhammaan inta ay khuseysay aan kormeer shaqo ku tagnay airportka aadan cabdulle oo runtii ka socoto shaqo baaxad leh sanadkii la soo dhaafay ayaa waxaan shirkadda Favori oo airportka muqdisho manage garayso maamusho kontraadna ku haysatay waxaan la galnay kontraad cusub kontraadaasi waxay shirkadda ku qasbaysay in ay shaqo dhismo dib u habeyn dib cusboonaysiin badan ay garoonka ka qabato si muddada 20 sano ee soo hartay airportkaasi loo isticmaali karo kontraadahaas waxaa ku jiray duugitaanka badda derbi laga dhisay ilaa 500 mitir ku dhow oo badda gudaheeda laga dhisayo badda oo la duugayo runwayga oo dib loo cusboonaysiinayo taxiway sub oo la sameeyo haddii Ilaahay ka raali noqdo iyo movement area ama apronka oo la cusboonaysiinayo marka waa shaqo aad iyo aad u tiro badan u baaxad weyn shaqooyinkii ayaa anaga oo dhaxda ku jirna inkastoo hadda uusan aad u daahin oo dib u dhicin waxaa nagu soo galay xilliga coronavirus-ka ayaa nagu soo galay muddo badan ayuu airportka xirraa oo aan la soo gali karin marka si loo dardargeliyo cabashada dadweynaha ay soo gudbiyaan guddiga diyaaradaha iyo inta ka shaqeysa meeshana ay soo gudbiyaan ku saabsan dayactirka garoonka iyo dhanka civil aviationka oo dhinaca regulationska wixii ay ka qabaan aragtida ay ka qabaan oo dhan si loo dardargeliyo shaqada ayaa maanta kormeer rasmi ah aan ku soo marnay dhammaan meelaha shaqada ay ka socoto aan soo aragnay in shaqooyinka ay badi socdaan qaarkood la dhameeyay qaar badanna ay runtii ay dhiman yihiin waxaan rabnay marka inaan ku dardargelino sidii qaybaha dhiman loo dadejin lahaa sida ku qoran kontraada quality-ga ku qoran kontraada na loogu sameyn lahaa haddii Ilaahay ka raali noqdo waxaa runtii warbixin siiyay civil aviationka maamulka garoonka iyo shirkadda Favori haddana waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala waqtigii koronaha ee uu xirnaa naga xirnaa airportka oo shaqada dib nooga dhacday inaan ka soo kabano oo shaqada aanan dib nooga dhicin xilligii loogu talagalayna aan dhameeyno haddii Ilaahay ka raali noqdo waxyaabaha ka hor imaanaya shuruucda ee laga yaabo inay kontraada ku jiraan aan dib u sixitaan aan hadda ku sameeyno haddii Ilaahay ka raali noqdo waxaan runtii halkan ooga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha siihayaha ra'iisul wasaaraha oo waqti badan maanta na siiyay nala soo kormeeray na dhageystay shaqo badan oo wanaagsan nala qabtay isu soo kaayana dhaweey sidii arrintaasi loo dardargelin lahaa